السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلهي مهدي هدي آن مر لبات إي مر سدحات إي مر أفراد رسول الله بني إذن كون نبضة إي أني كون نبضة. أصحابي ما أنت وحن إذين وذا قصة عن الصيابي أو كل أكل تقف والبق أو إذن كمد قف والبق أو إنك كمد أصحابي قصة المحلي هذا هبينكي معجزة أها نلشيد صامرة habeenkii mucjisada ah ee nolosheeda soo mara baa la yiraahdaa qisadan waxay ka dhacday asxaabay wadanka Ingiriiska magaalada la yiraahdo Northampton bay ka dhacday waxa isqabay family aad u qurux badan gabar iyo wiil baa isqabay gabadh waxa la oran jiray Sandra wiilkan waxa la oran jiray Warren iyo Sandra waxay lahaayeen hal wiil bay lahaayeen oo dhaleen waxay ahaayeen dad isku meel ku soo koray oo ciyaar iskuul isla ahaa oo ciyaar xaafad isla ahaa oo wax kasta يعني dad aad isku yaqaanay ahaayeen aqoontaas kadib ayaa waxa dhacday in ay xiriir jacayl sameystaan oo ay ku guuleysteen family bay sameysteen meel bay degeen reer bay noqdeen meel degan oo meel ka soo jeeda habeenada kamid ah baa waxa dhacday waxay ahayd marka Christmas ka habeenka ka horeeya Christmas Eve ka ay dhahaan bay ahayd gaaladu habeenkaas baa waxaa dhacday gabadhii Sandra ahayd iyo wiilkii Warren ahaa baa waxay soo aadeen meel lagu caweeyo oo dhalinyaradu ay ku sheekaystaan iyo dadka is yaqaan iyo dadka isla shaqeeyo iyo bay soo aadeen ilaahay amarkii habeenkii waxay la kulmeen gabadhii Sandra ahayd abtigeed oo maxay ahayd xiriir iyo jacayl waxba aan haysanin oo naag la'aan ahaa oo aad ugu walwali jirtay bay waxay aragtay isagoo gabar la jooga markaas wuxuu ku yiri Sandra isbarta gabadhan waxa la yiraahdaa Shannon baa la yiraahdaa waa saaxiibaday waa gabrahan isbaranay waa gabar maxay ahayd hadda aan isku cusubnahay gabadhii Sandra aad bay ugu farxday abtigeed maadaama uu wehel lamaana ah samaystay oo kalidu uu ka baxay aad bay ugu farxday sheekadu markay halka marayso waa la baashaalay waa la sheekaystay maxay ahayd qof walba iyo waran maxay ka wardambay xagee xaaladda ku maray adigu waa la iswareystay sidii loo baashaalay baashaalkii marka uu socday baa waxaa la gaaray 6 saac habeenimo midnight baa la gaaray bas gabadhii marka waxay tiri Sandra wiilkii baan ka soo kaxaynayaa hooyo markay guriga iyaga daba kaalay way ka hormartay iyadu hayuu yiri okay waayahay gabadhi orod bay istaabatay wiilkii yaraa dhalaan bay soo kaxaysatay gurigii bay keentay guriga markay keentay baa waxaa dhacday gabadhii kale oo abtigeed oo saaxiibta la ahaa baa waxay sameysay banaankay u baxday waxay tiri banaankan aadaya wax yar hawaan soo qaadanaya bay tiri banaanka markay u baxday baa waxaa dhacday waxaa la arkay gabadhii adigu saacado kadib ayadoo maxay ahayd meel wada asaa u jiifta oo sanka iyo dhiig iyo meelahan ka soo socdaan afka iyo baa la arkay nin baa arkay wadada mariyay wuu naxay wuu qayliyay biliis buu u yeeray wuxuu yiri kaalaya qoftaan hala caawiyo maxaa ku dhacay ma garanaya anigu biliiska waa meesha ka qaaday isbitaal baa la geeyay waa la fiirfiiriyay waxbana saas laguma arkin dharkii baa ka jeexjeexnaa gabadha markaas ay gashanayd markaas waxay tiri waa lay kufsaday waa lay xoogay markaan banaanka u soo baxay oo isii baarka ka soo baxsay cawiir qaado baa lay kufsaday bay gabadhii biliiska warbixin ahaa u gudbisay warbixinta markay sidii u gudbisay biliiska waxay dhaheen way ka qoreen liis dheer baa laga qoray gabadhii waxaa la yiri ma taqaanaa qofka arrintan kugu sameeyay ma taqaanaa سيتري هاوا نقانا هاي نوشك waxay tiri ninkii qabay gabadhii Sandra aad waa Warren bay tiri ninka Warren la yiraahdo oo ninka saaxiibkay ah gabadhu uu abtiga u yahay qaba baa xoogay bay tiri gabadhii Soomaaliya bal fiiriya arrintan waxa waaye waxa dhici karta in dad badan oo idin kamid ah ama dad aad taqaanaan ee ku dhacdo falkan oo kale ninkaas ayaa kufsaday bay tiri waa la soo baxay gabadha xitaa way yaabtay oo Sandra ahayd
waxay tiri gabadhi maxaa ku dhacay gabadhi waa la kufsaday maba dhici kartee yaa kufsaday see wax u jiraan gabadhi way kala walbashay iyada xitaa maadaama ay ahayd abtigeed saaxiibtiis ay ahayd oo abtigeed ay rabtay inuu noloshiisa qofku ku dago u helo bay waxay ku noqotay gabadhi waxay ku noqotay wax kale walwal baa galay gabadhi maxaa dhacay bisinka maxaa hawshaan ka timid bas warkii aad ku daalina asxaabay subaxdii dambe baa iridii gabadhi Sandra ahayd waxaa ku soo garaacay booliis kub dirga meelka la soo yeeray dharac niman eedisa loo kala wareejiyay sideeso gacmaha qarab ninkii baa daflu soo yeeray maxaa dhacay maxaa qaldan aamus baa la yiri maxay ahayd hadal daarabtid saldhiga booliiska noogu daba kaale ninkii waaran ahaa sidii baa lagu katiineeyay oo gabadhi Sandra ahayd qabay waa la katiineeyay katiinad baa lagu jabiyay saldhiga booliiska la geeyay waraysi baa la yeeshay anigu wuxuu yiri gabadhaas habeenkaas iigu horeysay iiguna dambeysay ma arag shaqana kuma lihi ma jirtaa leeyahay gabadha waad xoogtay adagay ku sheegtay gabadhi Sandra ahayd way aamini weyso waxay tiri ninkayga waxaas iyo wax la mid ah kama suurtoobaan intaasoo sano aan aqaanay waaran oo maxay isku meel ku soo kornay oo maxay iskuul isla dhiganaynay jaamacad isla dhiganaynay meel kasta qof waxaas ka suurtoobi karaan ma ahan bay tiri mana iga dhaadhacayso meesha rabtaan ku keena waxaa la yiri ninkaagu waayo waa ma aragti waad u hiilinaysaa waa qiyaasi karnaa because waa nololaa kaa dhaxaysa adoo ku qaba xaaskiisii baa tahay waa difaacaysaa sidii ayaa ninkii waaran ahaa xabsiga loogu taxaabay maxkamadii baa la yimid maxkamadii bay waxay ka cadaysay gabadhii maxay ahayd Shannon ahayd oo tiri waa la kufsaday waa ninkan bay tiri ninka kufsaday xaakimku wuxuu xukmiyay 3 sano oo xarig ah in lagu xukumo ninkii waaran ahaa maxaa laga qaban karaa waxba laga ma qaban karo xaakimku wuxuu yiri waa sax gabadhan waxay sheegaysaa waa run balse arrintu sax ma ahan waa la joogay gabadhii Sandra ahayd walwal ilmaheedii yaraa oo wili maxay ahayd iskuul gaarin oo cunug yar ah kaligeed bay ku noqotay dadka dariska ahaa ceeb wajigabax xaafadii wajigabax baa ka raacday xaafadii waxaa la leeyahay tan ninkeedii naag buu kufsaday waa criminal gurigaas yaa la tagin yaa la salaamin yaa lala hadlin waxaan ku leeyahay xaafadii dhan waxay ka noqotay duka cambaar leh gabadhi Sandra ahayd sheekada markii halkaa marayso baa waaran aabihiis baa arrinta u qaadan waayey yacni dhibaatada wiilkiisa uu ku sugan yahay buu u qaadan waayey markaas buu wuxuu hayr gareeyay nin dambi baare private detective waxa la dhaho buu hayr gareeyay wuxuu yiri arrinta gabadhaas bal isoo baar anigu arrintan kuma qaabisani wiilkayga waa naqaanaa wiilkaygu maxay ahayd nin waxaas ka suurtoobaan ma ahan isoo ogow gabadhaas arrinteeda ninkii oo cidiisa hayr gareysa oo private ka ahaa baa wuxuu soo ogaaday gabadhii Shannon ahayd inay 3 magac leedahay in ay hadda ka hor ay dad soo masabidatay 2 qof ka horeeyay ay tiri way kufsadeen buu soo ogaaday arrintii markaan wiilkii waaran ahaa wuxuu xiran yahay 2 sano iyo 8 bilood meelahaas buu xabsiga ku jiraa wiilkiisa yaraa iskool buu gaaray warka ma hayo halkaasuu iska oynaya wuxuu yiri aniga noloshan markii ay xaaskiisa soo booqato wuxuu leeyahay nolosha aan ku jiro nolosheedii ma ahan adduunyo waa ka sabray anigu waxaan sameeyay ma aqaan ninka dhan wuxuu noqday nin ma aragtay niyada ka dhimato noqday asxaabayaan warka idinku badanine waxaa la soo ogaaday arrintii dhabta ahayd maxkamadii baa la isugu soo laabtay maxay ahayd gabadhii baa maxkamadda la soo istaagay Shannon ahayd waxaa lagu cadeeyay Shannon inay 3 magac ay leedahay waxaa kaloo lagu cadeeyay inay dad hor been ka soo sheegtay baa lagu cadeeyay wiilkii waaran aan 3 sano buu xabsiga soo leefay 3 sano buu xabsiga soo leefay booliiskii iyo judge-kii waxay xukmiyeen in wiilka noloshiisa lagu ciyaaray in maxay ahayd sharaftiisa la dilay karaamadiisa ay dhimatay waxaa magdhow loo xukmiyay gabadhii Sandra ahayd iyo ninkii waaran ahaa lacag gaaraysa 240,000 oo pound baa magdhow loo siiyay
inay noloshooda kusoo dhistaan maadaama maxay ahayd lagu xukumay xukun aan cadaalad ahayn asxaabay marka dadka aad maxay ahayd la jaan qaadaysaan iska ilaaliya dad xun baa jira marka barnaamijkeeni maanta sheekadii aan la soo yaabay halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa asqaqyaarey haddii aad channel ku cusub tahay like share subscribe waa xaggaaga haddii aad hore noola joogtana share gareeya barnaamijka share gareeya si uu asxaabo fogfog iyo meelo fogfog u gaaro waa mahadsantihiin